mudanayaasha golaha deegaanka ee dalka oo dhan inaanay wax mushahar lahayn shaqadooduna inay tahay tabar ergaas oo isticmaalaya oo ay ku tabarucayaan magaaladooda cidda qura mushahar leh waa guddiga fulinta oo ah duqa magaalada ku xigeenkiisa iyo xogayaha fulinta saddexdaas baa mushahar yeelanaya inta kale xubnaha golaha deegaanka wax mushahar ma leh shaqaduna waa tabaruc الله hayaay siduu sheegay xeerka dawladaha hoose ee degmooyinku xildhibaanada golayaasha deegaanku wax mushahar ma waariyay marka laga reebo maayarka iyo ku xigeenka wariyo ninkaan naqaanay waa nabada iska waran war waa meedhaxaade soo qabsa kursiga soo fadhiisa baldhiyo halkan aan marayo waan ku soo baxay war waa fadhiyaa iyo warrami gaadhiyo maxaa war haysa iyo warrami gaadh no maanta ma war ku haya haye aad igu waran war dee ku warramay waariyay xildhibaanada golayaasha deegaanka dalkoo dhami wax mushahar waariyay ma leh marka laga reebo maayarka iyo ku xigeenkiisa waariyay الله محار رب بدن حلبانه يدري ضد عيني مر بشهر مرة واريه وأقول يا شديان كدل كورن حرك اسمه ملك الدجموين كواريه شيء حرك اسمه ملك الدجموين أي شيء وارده وحول بهنا رايمن ما أدمر كورسان أبو شيء تان حق اللي حقه ويا عني نفتنا قبل الحلبان إما الحلبان كهير كيجي الدين عيدا كبنا ملقولي حرك ما أمر كورسان أبو شيء تان حق اللي حقه ويا عني أنا كانوا حلبان كان يقدر قصص عريضة الله ضاي ما شو بلا عناية وبلا مشاهر أروح يالي من اليوم حيركم مرة روسان لو شيء له هاي حلبان كان قالوا كذا ما كصباح سنة كم حيركم إنت أنا حاول من قبل حين من وشة وسنة كيو هريه بصباحه وعن ما مرايد ضبط كضوات هذا خير يسمى أنا أقول يعرس وارما يا مرايد وحركة ما دوانه وحير قرن حقوق قرية مركا ديبو جنبو قرية واري الأخيرة مرايد لو ولا جسي دايما قرنه ويدا دوري مركا ما يرد يكو حجينا ذو بقى قديني هاي وحلبان كي بخ واري يوم يلا ورانت خير كان لهاي ما يرمى كو حجين بختين بروح نقول الله سنك إمك وحنا خلي يسمى هل كانوا حير قرية حير كتجمعين كي وحنا شيء بو جنبو قرية حير كاسمه ملك الدجمعين مدرياش قرياش الدجان كملها واحد مشارع marka laga rabo maayarka ku xigeenkiisa oo tiinkaan jiidnay tabarucaad bay ku shaqeynayaan marka maxaana lagu sheegay waa intaan qalalan marin meesha bilaacaatay heerkaygu qof iyo baroor bay doonayaan loo habeeyay no arwaad kulaadayn iyo baroor habaysan waad kulaaday xeerka ismaamulka degmooyinku wuxuu sheegayaa in mudanayaasha golayaasha deegaanku aan wax mushahar lahayn marka laga reebo maayarka iyo ku xigeenkiisa sida xeerku sheegaya reeraha kaliya ee suqaarka isku shiidaya waa reeraha la maayarada iyo maayar ku xigeenada halka reeraha xildhibaanada caadiga ah lehna aanay helay wax habaysan iyo wax la habeeyay midna xeerka ismaamulka degmooyinka iyo dawladaha hoose wuxuu intaa ku darayaa reerihii u tafaxaydnaa timirta iyo caanaha iyo baloodhada habaysan inay ku timir iyo caana iyo balood la yihiin xildhibaanadooduna ay ku shaqayn doonaan tabarucaad wixii deyn iyo mashaxarad iyo alalaas lagu lahaa xilligii ololahana ay iyagu isu qabaan sidaa darteed waxaa kaliya oo aanay suqaarka isku shiidaya reeraha la maayarada iyo maayar ku xigeenada ama diidama yeel xeerkaas la dhigayaan warniyo bal xeerkaasi wuxuu nagu sameeyay warma wixii aan ololo iyo orod iyo mashaxarad ku jiraan la xildhibaankiinu ku baqaadan maayo ma reerka iyagu u jeeda xeerku حقنا نو عرّي أو حقنا نو عرّي أو حنا مال يا جوهينا وابحنا أو حلي بابان صار أو أمريكي نوجه رئيسي تمر إياه عطانا قال ما يو سيرو حاجة بقرن إسكت يا حير كانوا من وجه لا واحد حاضر صار هذا على ما يخلي يكون حجينا سكار كيس كل شيء دام بنروح لك قرن دونا بقول أي حاضر نو حوايد كل عيادة جيسو إمك هكو حاضرين هذا على ما يخلي ما يكون حجينا بني حاضر إمك هكو حاضرين ده بدأ يسوق كليبر وأكون جيسني ده هاو فريو إمك هكو حاضرين يا جود هم بقولياش شديجان كسومالي لان reeraha kaliya ee mushaharka qaadanaya suqaarka isku shiidaya waxa kamid ah iyo koow hargeysa beesha abakor muuse iyo beesha ismaanada ayaa suqaarkoodu isweydaaran doona magaalada hargeysa iyo maadaama ay leeyihiin maayarka iyo maayar ku xigeenka gobolka Murudice laba magaalada berbera waxa mooye saxa ku meeran doona beesha Muuse Cabdalle iyo beesha reer Sahal oo maayar iyo maayar ku xigeenka ah degmada berbera ku soco boorama beesha reer nuur iyo beesha jibraaciin ayaa caanaha ku foodhaqan doona maadaama ay yihiin maayarka iyo maayar ku xigeenka gobolka Awdal burco beesha reer muumin iyo beesha reer xaad ayaa mar qura tayga iska furi doonin maadaama ay maayar iyo maayar ku xigeenka yihiin gobolka Togdheer waar maxaad ma burcadana qani war hooy dhageysanayo gobolka Sanaag magaalo madaxdiisa Ceerigaabo shanta sano ee soo socota waxa xiran kara macawsaha iyo abu sarandada ah beesha Muuse Ismaaciil oo hore u xiran jirtay iyo beesha Udruxmeen oo imika ku soo biirtay waa gobolka Sanaag oo dhan waxa abu saranda xiran kara beelaha Udruxmeen iyo beesha Muuse Ismaaciil oo maayar iyo maayar ku xigeenka ah degmada Ceerigaabo gobolka Sool degmada Laascaanood
shanta sane ee soo socda waxaa kaliya oo go'shaala ku jeeni qaaran kara beesha jaamac siyaad iyo beesha fiqishini cidii kale lagu arko iyadoo go'shaala sideetan waa 5 sano xadhiga ilaa waa maayar iyo maayar ku xigeen waariga fiqishini iyo jaamac waar waa ku dhameeyay beelaha suqaar tuurka shanta sane ee soo socda waar waan gartay allah inaadeer nasiib badan reerka aan sanadka maanta xildhibaan golo daagan ma soo bixin ka badbaaday dirida الله نصيب وكيليو ريركا وار ريركا كبدباداي بشارده xildhibaanada aan xildhibaan gole deegaan ma soo bixin nasiibkooda Allah nasiib badan ayna wooniyo waa reerkaasi reerka kabadbaaday nasiibka badan بشارده xildhibaanada golayaasha deegaanka reerkaasi waa keeliyo war reer wanaagsan Allah ina arda afarta xaraf way kabadbaadeen bishaaradii xildhibaanada xildhibaan gole deegaan ma soo bixin halka ka daaniyo waar maxaan uga deynaa anaga ku jabno soo saaray xildhibaano mushahar baan u qaadaynay afarta xaraf kuuriyadu way ka badbaadeen hada siinay baan u fadhinaa waarama inuu siinay fadhinaa ma October afarta xaraf way ka badbaadeen xildhibaanada baa mushaharkaniyo oo waxa leedahay afarta xaraf nasiib bay leeyahay afarta xaraf nasiib bay leeyahay reeraas saddex xildhibaan soo saaray yaa mushaharka siin Allah haya nasiib bay leeyahay oo waxa leedahay xildhibaan ba ka busaaradan ma waar afarta xaraf golayaasha deegaanka waa weyn xildhibaan ba ka busaaradan ma meesha la yiri mushahar bal qaadan maayo Allah reeriyo saddex soo saaray ma inaad kuwaas loo yaabo كحرنو توشك السياسة مغلارة توشك السياسة وحد كيرسا قبيالتي وقاون وانجير لو سو قبن بلسي ان قللين او قابين iyo qoyn lagu sameeyay qarracan loo meeldayn barnaamijyo maadax iyo kuwa mala yacni ah warbixino dhexdhexaad ah iyo kuwa dhinac ka raran ku xidhnow tooshka siyaasadda noo kaalay warar xaqiiqo ah iyo qaaran sal iyo raad lahayn ku xidhnow tooshka siyaasadda hadafkeenu waa la dagaalanka qabyaaladda cunfiga ku dhisan